I was a millionaire, but now I'm a beggar. haweeney konton jir ah oo lagu magacaabo Doorkaas oo ka timid gobolka Meru ee dalka Kenya ayaa u sheegtay mid ka mid ah dadka YouTuberada sheekada ku saabsan sida nolosheeda ay u noqotay mid aad u xun oo ay uga gudubtay nimco una gudubtay caws. waxa ay ku handacootay maadaama aysan haysan guri xasiloon oo soo koraya in noloshu ay runtii ku adag tahay iminka oo ay taagan tahay xaaladii ugu dambeysay. haweeneydani milyaneerka ahayd ayaa la sheegay inay ahayd gabadha keliya ee ay hooyadeed ay dhashay. waxa ay samaysay dadaal fara badan markii ay yareed ilaa waxa ay gaadhay heer waxbarashada markaasi ay ka gaadhay jaamacadda halkaasi oo runtii shahaado sharaf ay ka qaadatay. dabadeed waxa ay heshay shaqo lacagna waa ay soo gashay si wanaagsan ayay uga faa'iidaysatay iyadoo hanti markaasi yeeshay. guryo ayay dhisatay si ay u ilaaliso mustaqbalkeeda kadibna waa ay guursatay. wax waliba si fiican ayay u dhaceen laakiin murugo. I'm sick. I have nothing. I have no food. That's why when they see me begging, they don't want even to see me near them. ninkii ayaa ka tegey markii carruurtoodu 6 bilood jirtay. inkasta oo ay ku adkeed xaaladaasi kala taga haddana waxa ay sii wadatay nolosheeda caadiga ahi maadaama ay dhaqaal ahaan xilligaasi ammaan ahayd. waxa ay abuurtay hanti dhowra oo lacag soo saartay waqti yar gudahood. waxa ay ahayd milyaneer maadaama ay si fudud u awoodi karto in ay daryeesho gabadheeda. noloshu waa ay sahlanayd. waxay ku turunturootay qandaraas faa'iido badan oo bariga dhex markaasi uga imaanayay. laakiin maalin maalmaha ka mid ah waxa ay go'aansatay inay ka faa'iidaysato fursad ay ku kordhiso lacagteeda in yar. ma ay garan waxa sugaya. waxa ay tagtay dalka Sacuudi Carabiya halkaasi oo runtii ay muddo ay ka shaqaynaysay. intii ay Sacuudiga joogtay ayaa la sheegay in halkaasi ay ku xanuunsatay. dhaqaatiir ayaa u tagtay kuwaasi oo sheegay in ay haweeneydani ay leedahay dhowr xaaladood oo markaasi daba dheeraad ah kadib markii ay saameeyeen tiro baaritaan ahi. xanuunada ku dhacay haweeneydani ee beddelay hantideedii iyo mustaqbalkeedii waxaa ka mid ah sankarowga, cudurka beerka iyo kansarka daa'imka loo yaqaano. waxa ay qaadatay go'aana in ay ku laabato guriga mar haddii ay ogaato sida ay ugu adag tahay in ay markaasi ku bukoto meel kale oo waddankeedii ka baxsan. aad bay markaasi u tabar darneed in ay sii shaqayso maadaama caafimaadkeedu uu bilaabo inuu sii xumaado. haddaba si ay u bixiso qarashka daaweynta waxa ay baabi'isay dhammaan hantideedii. waxa ayna ugu dambayntii buuxisay qarashaadkeeda. hadda waxa ay u ooyeysaa waa cunto.